Asalaamu calaykum. Ku soo dhawow macluumaad kooban oo ku saabsan Jamhuuriyadda Somalilan. Kuma soo gudbinayo wax badan, se waxaan kuu soo gudbinayaa wax anfacaya qofka yar ee ama aan ku dhalan Somalilan ama ku dhashay si aan wax badan ka aqoon Jamhuuriyadda Somalilan. Waxaa kuu soo diyaariyey anigoo ah Cabdiraxiim Saciid. Soo dhawow. In yar ka baro Jamhuuriyadda Somalilan. Ugu horreyn, Jamhuuriyadda Somalilan waxay u qaybsantaa 6 gobol oo waaweyn. U qaybsanka 6 gobol ee Jamhuuriyadda Somalilan waxa ay u kala sii baxaan gobolka Sool, Maroodijeex, Togdheer, Awdal, Saaxil iyo Sanaag oo ah gobolka ugu weyn. 1960kii bishii Juun 26keedii ayay Jamhuuriyadda Somalilan ka qaadatay xornimadeedii gumaystihii Ingiriiska. 4 maalmood kadib waxa ay Somalilan la midowday walaalahoodii Soomaaliya Koonfurta ee uu haysan jiray Talyaanigu bishii 7aad koodeedii 1960. midowgii labadii dal Somalilan iyo Soomaaliya waxaa laga dhaxlay xigsasho, qaraabakiil, dib u dhac dhaqaale, go'doon, caafimaad la'aan, waxbarasho la'aan, xasuuq iyo waxyaalo kale oo la mid ah. Waxaas oo dhibaato ah oo dhacday, shacabka reer Somalilan waxa ay la galeen dagaal ay kaga hor yimaadeen dowladdii rajiimka ahayd ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre. Waxaa samaysmay jabhado. Jabhadihii kacayna waxaa ka mid ahaa jabhaddii SNM. Waxaa loo soo gaabiyey Somali National Movement ama ururka dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed. Kadib markii ay jabhaddii SNM ay dalkii xoreeyeen ayaa magaalada Burco shir ka dhacay 1991kii dhammaan ay qabsadeen qabaa'ilka dega Somalilan oo dhan. Waxaa lagu go'aamiyey 18kii bishii May 1991kii gooni isu taagga Jamhuuriyadda Somalilan oo lagaga dhawaaqay magaalada Burco. Intaas kadib waxaa la isu raacay xoreynta dalka inta dhiman iyo in la dhiso dowlad dhan oo loo dhan yahay, waxaana la doortay madaxweynihii ugu horreeyay oo noqday Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur.